degmada Arbogays oo ka tirsan gobolka Sool waanu gaarinayaa waxaanu kula kulannay dad dhalinyaro u badan oo ka shaqaynaya nadaafadda deegaanka iyagoo looga warbixiyey qaabka ay u shaqeeyaan islamarkaana waxa ay codsi u direen madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi hiirad kana mid ah odayaasha magaalada Arbogays waxaanu halkan waanu saxafadeedkan halkan ku qabanay wuxuu ku wajahan yahay anagoo ah odayaasha magaalada iyo ururka nadaafadda magaalada Arbogays oo ah magaalooyin ka fog dawladda Soomaaliland meel aad uga fog gobolada ka fog ku taala magaaladaas ayaanu ka ururinay muddo dhaweey ka sameynay ololaha nadaafadda oo aanu si isku tashi magaaladu aanu ugu sameynay olole qashinkii magaalada hareeraha waa ka yaraynay magaalada gudaheedana waxaanu ka hirgelinay inay iska ururiso oo gaari la saaro bishii 4 jeer ayaa laga qaadaa ilaa 20 lowr oo qashina baa ka baxa bishii arinta darteed markii arinta aanu sameynay arintii waa naga xoog weynaatay dawladda Soomaaliland gaar ahaan madaxweynaha baa saxaafadka iyo dadkan u dhashay deegaanka Arbogays waxaanu baaq dheer ugu diranaa inay arintaasi mutadawalnimo aan nooga soo gargaaraan oo gaarigaas waa lagu kiro gaari iyo god qashinka lagu gubo iyo qalabkii aanu ku ururin lahayn wax kasta oo wax tara baan arinta baaqo jeedana inay degdeg noola soo gaaraan magaalada Arbogays waxaanu nahay ururka nadaafadda magaalada Arbogayseed hadalka waa inta Cali Maxamed Hiirad yiri marka sida darteed anagu waxaanu jecelahay in arintan laga saacido sida gaari qalabka wax lagu nadiifiyo ka lagu ururiyo waxa soo dhan marka waxaanu leenahay hadii Allah wada la golaado hawshaasi degdega in wax nooga qabto oo si wanaagsan oo hawlkarnimo ah oo wanaag leh ayaanu rabnaa in dawladda Soomaaliland ay wax nagala qabato Allahumma salli ala Muhammad sida ay ka hadleen qolada odayaasha hawsha ku jira annagu waxaan nahay odayaasha magaalada hawsha nimankaas dhowr bilood bay wadeen muddada runtii dhibaato badan waa ka gaadhay qaras badanina waa ka baxayo ama magaalada ha ka ururiyeen ama iyaguba jeebkooda ha ka bixiyeen gawaari bay kareystaan gawaaridaas xitaa meel ay ku shubto oo deegaan xumayn bay keenaysaa haddaan god loo qodin oo meel lagu shubo lagu gubo loo qodin intaas waxa wixii dawladda qaban jirtay oo dhan bay qabanayaan waxaanu dawladda Soomaaliland ka codsanaynaa horta waa la isu baahan yahay dawladda annana u baahannahay iyana waa noo baahan tahay codka iyaga loo baahan yahay deegaanka loo baahan yahay deegaan ballaaran weey deegaankanu 32 sanadood ay Soomaaliland jirto wax tasiilaad kama naar wax tasiilaad leeyahay oo umadi u baahan tahay oo deegaanka faraha badan ee waxaad moodaa dawladdu magaalooyinka waaweyn iyo gobolada iyo bay ku egtahay baad moodaa waxa la wasaaradaha arrimaha bulshada qaabilsan oo dhan baa loo baahan yahay inay dal gaaraan baa loo baahan yahay markii aanu weynay wasaaradda arrimaha bulshada caafimaadka xanaanada xoolaha arrimaha gudaha deegaanka intii wixii wasaaradda dawladdu ugu tala gashay aanu mid ka weynay waxa lagu kaliftay in madaxweynaha la hadalo cid kale anagu la hadli mayno madaxweyne Muuse Biixi Cabdi baan la hadlaynaa waxaan leenahay madaxweyne arinta inaad wax nagala qabataan rabnaa wixii deegaanka u baahan yahay inaanu helaan rabnaa waxaanu dawladda xaq u leenahay inaanu helaan rabnaa nimankan dhalinyarada ah ee aad ugu dhibtooday arrimaha in wax lagala qabtaan rabnaa hawlaha kale oo deegaanka u baahan yahayna degdeg baan madaxweyne kaaga codsanaynaa in arrimaha wax nagala qabto arrimaha bulshada wasaaradihii ku saabsanaa dhameynay noo yimaadaan in nala shaqeeyo wasaaradda arrimaha gudaha oo gobolada iyo degmooyinka qaabilsan waxaan rabnaa shaqada inaan hawsheedii ka helo way taabteen odayaashiga horeeyay hadda waxyaalaha galabta aan rabno aan codsi iyaga weyn aan hadda halka ka jeedinayna wuxuu yahay arrimaha nadaafadda iyo adeegyada magaalada dhexdeeda magaalo weyn weeye waxay u baahan tahay waxyaalaha badan oo tasiilaadka ah oo nadaafadda iyo gawaarida laga shaqeeyo iyo qalabka laga shaqeeyo iyo waxaasi
ووحي دولته يقبل شرتي تشعبنا إن كستو إن بدن لودي وهذه الشيء مربع ولا إسكا وحقب صار لوك يوم مضل وضو إن تشعبي وحوي كان كروايين ويستاجس وحشعبي وحي وضان إن ده مسي صعايو مر والبنا ولا وم ده نظافتي يو في يدور كي مقالده إن ولا مر لوك يو ده كسعوه waxaanu dawladda Soomaaliland ka codsanaynaa siiba madaxweynaha Muuse Bixi Cabdi waxaan ku codsanaynaa degmada Arbogays waa isla yaqaanay oo magaalo weyn deegaan ballaaran ku taala waxyaalaha maaragtay magaalada gudaheeda ay u baahan yihiin waxa kamid ah gaarigii nadaafadda laga shaqeyn lahaa oo runtii markastoo hadeer ololaha lagu qaado gawaari baa loo kareeyaa dadku qalabkay haddana dadka laga ururiyaa godad hadda ka hor aanu qodanay baa culays noqday oo mar walba iyagii haddana buuxsamay runtii waa waxyaalihii ay dawladdu qaban jirtay way badan yihiin arrimaha bulshada Cabdullaahi Maxamed Kaarshe TV qaranka Arbogays